hal qaada bas leh haddii aad ku shubatid shaambadaada maasha allah waa yaabaysaa isbedelka timahaaga say u baxaan ee caafimaad u helaan ee u dheeraadaan yacni timahaaga waxay noqonayaan timo caafimaad leh oo badan timaha haddii ay kaa go-ayeen go-itaanka way kaa istaagayaan quwaday yeelanayaan tintaada wayna baxaysaa tinta maasha allah way dheeraanaysaa. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصحابتي وإذن سلامي دمانتين ميل كستو أدونك أكا جوجتين سو دواada kusoo dhawaada Faiza's World. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad wada nabad qabtiin. soo dhawaada asxaabtayda qaaliga ah. maanta videogeena waxaa noogu diyaarsan laba nooc shampoo oo nafaqooyin u samaysanayno oo ku darsanayno maadaama shampooyinka chemical ay leeyihiin waxaan ku darsanaynaa nafaqooyin oo chemicadaas yacni ka hortag nooga noqdo. nafaqada shaambada aan ku darsanayno waxa waaye saddex nooc waaye asxaabta, saddexdoodana maasha allah waxa waaye timaha go-itaanka aad ugu fiican yihiin, timaha quwaday siinayaan, jileecay ka dhigayaan, yacni waxa waaye wayna badinayaan timaha, caafimaadka timaheena aad ugu fiican yihiin. saddexdooda waxa waaye saddex shay cajiib ah oo la soo koobi karin faa'iidooyinka ay timaha u leeyihiin. marka soo dhawaada asxaabta insha allah videogana like dhaha, like-tana hilmaamin insha allah, like-taa ka tagina, share u dhaha gabdhaha asxaabtiina. aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaya dhammaantiin. soo dhawaada. waxaa meeshan ku haysanaa dhagayarahana waxa waaye asxaabta ma karinayno mala karinaayo sidiis le yacni aan ugu shubanaynaa shaambada, yacni 15 xabo 20 xabo camal meelahaas aan ku shubanaynaa shaambada. dhagayaraha saas aan u isticmaalaynaa. waxaa kaloo meeshan ku haysanaa qasilkana waxa waaye caleentiisa waaye, ma ahan qasil oo powder ah oo la shiiday, ma aha qasilka caleentiisa shaambada u isticmaalaynaa insha allah. iyo waxaa kaloo meeshan noo yaalo akliili jabal ama rosemary. akliili jabal asxaabta waxa waaye bilcarabi waaye, englishna waxaa la dhahaa rosemary. marka rosemarygana waa isticmaalaynaa shaambadan ku shubanaynaa insha allah. shaambada isticmaalaynana waa tana asxaabta. shaambadan waxa waaye shaambo oo min shirkad Garnier. marka anaka asxaabta waxa waaye shaambadan inta isticmaalnaa, shaambadan ana naasibtay idinka. marka waxa waaye shaambada markaas isticmaashiin oo idin naasibta u isticmaali kartiin. shaambooyin badan aa jiraan oo fiican oo yacni oo silicone iyo sulfate aan lahaynin, haddii aa helaysin isticmaal insha allah. haddii kale shaambooyin oo macquul ah sida shaambadan oo kale, shaambadan hadda anaka waxa waaye waa isticmaalnaa, nafaqooyin aan ku darsanaa. marka waxa waaye shaambooyinkii ay jeceshihiin idinka isticmaashiin oo yacni idin naasibtay aa u isticmaalaysin insha allah. marka soo dhawaada asxaabta, haddana waa bilaabanaynaa. marka hore waxaan isku karinaynaa rosemaryga iyo qasilka aan dabka saaranaynaa, biyaan kula karinaynaa insha allah. dab gaaban aan ku karsanaynaa. marka hore digsiga waxaan kusoo shubanaynaa hal qaado weyn oo ikliili jabal ah ama rosemaryga marka asxaabta af soomaali waxa lagu dhahaa ma aqaani, yacni gabdhaha qofkii oo af soomaali ku yaqaano commentiga hoose noogu soo qoraan insha allah. waxaa kaloo ku shubanaynaa hal qaado weyn oo qasil ah, qiyaastii waxa waaye hal qaado weyn, yacni labadoodaba hal qaado waaweyn waaye oo qasil iyo rosemary. marka waxaa kula karsanaynaa hal bakeeri biyo ah. dab gaaban aan ku karinaynaa, dabka waa u gaabanaynaa, dab aad u gaaban aan ku karinaynaa. rosemaryga asxaabta timaha faa'iido badan uu leeyahay. madaxa hoose yacni xididada dhiigga uu socodsiinaya, xididada dhiigga markii ay socdaanna waxa waaye timaha way soo baxayaan maasha allah, yacni sida masaajka camal. madaxa markii masaaj loo sameeyo xididada dhiigga way soconayaan, kabacdina waxa waaye timaha waa soo baxayaan. rosemaryga waxa waaye maasha allah madaxa hoose xididada dhiigga uu socodsiiya, timahana waa badiyaa. wuxuu kaloo u fiican yahay mushkilaadka oo madaxa ku dhaco sida bakteeriyada, agoolka. maasha allah wuxuu kaloo ku fiican yahay timaha waa qoynaya, waa ratibaya, qaleelka uu ka ilaalinaya maasha allah. timaha wuxuu ka dhigaya timo oo qoyan oo ratuuba leh oo qurux badan oo dhalaalayna xataa ka dhigaya timaha. qasilkana asxaabta faa'iidadiisa horaan wax badan uga soo hadlay, timaha inuu badiyo, yacni timaha khafiifka waxa waaye waa badinaya, quwadu siinaya, timahana waa bixiya, waa dheereynaya maasha allah. qasilka asagana waxa waaye faa'iido badan uu leeyahay. haddana waxaan sugaynaa ilaa ay kusoo karayaan, yacni ilaa 4 daqiiqo 5 daqiiqo meelahaas daan sugaynaa. kabacdina waxaan sameynaynaa dabkaan ka daminaynaa, waa dabooleynaa. markii ay noo qaboobaanna waa miiraynaa, kadib isku soo noqonaynaa insha allah. waa kana haddana asxaabta markii aan soo miirnay bakeerigaan aan kusoo shubanay maasha allah, saan inoogu soo baxeen. haddana shaambadeen aan diyaarsanaynaa. baaquligaana marka aan soo diyaarsanay aan shaambada aan ku shubanaynaa, aan ku qasanaynaa.
shaambada isticmaalayna asxaabta waxa waaye nus waaye caaga nuskiisa waaye shaambada kaamil ma aha marka caaga nuskiisa aan ku shubanaynaa biyahan hadda aan soo diyaarsanay oo rosemeriga iyo qasilka biyaha kulligood ma ku wada shubayna waxaan isticmaalaynaa ada waa fiirinaynaa qiyaasaan ugu shubaynaa yacni si qiyaasaan ugu shubaynaa waa qasaynaa marka ma rabna inaan ku wada gedino oo shaambada bibiya ay naga noqoto waxyar aan ugu shubaynaa marka haddana waa isku qasaynaa waa fiirinaynaa yacni shaambada sida ay noqotaan fiirinaynaa shaambada ma rabna inay bibiya ay naga noqoto haddii markin waa isdhahna shaambada weli waaye yacni waa u baahan tahay waa u celinaynaa kastoo kale u celinaynaa marka waa qiyaasaynaa waa fiirinaynaa shaambadana ma rabna inay bibiya aada naga noqoto si qiyaasaa markaan ugu shubaynaa insha allah بس هادنا أصحاب شامبادين ساني ديار نوقتاي ما شاء الله ساني جاهز نوقتاي شامبادين وحكو علينا هذا عاقيد دبندنا استعمالينا سي اي نوق دادرين عاقيدنا كو علينا واتسا هادنا أصحاب شامبادين ساسي ديار نوقتاي ما شاء الله شامبو أون فقيسن أون كدرسني روزميري iyo waxa kale oo ku darsanay qasilka sidaas diyaar noogu tahay ma sha Allah hadda waxaan idin sheegayaa sida dhageeraha oo shaambada loogu shubto dhageeraha waxa way ma u baahna dabka in la saaro oo la karkariyo oo biyiis laga qaato waxa u isticmaali kartaa dhageeraha sidiisa ku shubanaysa adoo tumin sidiisa kula shubanaysa yani 15 xabo 20 xabo oo dhageeraha ku shubanay shaambada yani marka hore shaambada nusa ka dhigaysa nuskaas markaas u isticmaalaysa nuska shaambada marka waxa ku shubanaysa 15 ilaa 20 xabo oo dhageeraha ku shubanaysa meesha markaas ka isticmaalaysa dhageerahaasna sidoo kale waa ma sha Allah timaha waxa way mutahhar u yahay yani nadiif oo ka dhigaya cilaaj u yahay timaha waa daaweynaya carafna waa timaha waa carfiya bakteeriyada ka dilaya tintana waxa way jileec oo ka dhigaa oo jilcinaya tabcan waana dheereynaya waana bixiya oo badinaya ma sha Allah tabarakallah يعني marka shaambada saan loogu darsano waxa way nafaqay u tahay tinta shaambada waxa way kiimikadeedana ka hortagay u wadayihiin dhamaantood ما شاء الله تبارك الله أصحابته واحد الله هي إسلا أجادة سميستا سان عمل وسميستا إن 6 سنة واستعمال إن شاء الله مركا استعمالي سنة حاسميني والروح يسا مركا الروح ديت استعمالي سا مركز إن شاء الله تلاجة مؤباهنا إن شامبا دقيرها لو درسناي يتنكلها هذا أنصو سميستا تلاجة مؤباهنا إن لك استعماله مسخوش هذا لنا عكا دقنيسا إن مسخوش هذا 6 سنة استعمالي سا مركز إن شاء الله أصحابته واحد الله هي كفايدست إن شاء الله سانو كلا وسميستا شامبو يمكن سان ugu darsada wax badan ka faa'iido doontiin oo timihiina isku bedeli doonaan timahana idinku dheeraanayaan insha Allah aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashadiina insha Allah waxaan rajeynayaa dhamaantiin inaad ka wada hesheen videogeena maanta videoga like dhaha like-tana hilmaamina insha Allah share-na u dhaha gabdhaha asxaabtiina insha Allah waxaan ogolanay videoga dambe waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh